نحمده سبحانه أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام، ويسر لنا بفضله ورحمته تلاوة القرآن. نعم، سيأتيك الصوت إن شاء الله. نعم، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن إن شاء الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بادئ ذي بدء نعتذر من إخواننا الذين لا يفهمون اللغة الصومالية، لأن الإخوة طلبوا أن يكون الكلام باللغة الصومالية أو اللهجة الصومالية، ولذلك من جلس واستمع وإن لم يفهم له الأجر إن شاء الله، ومن لا فله العذر أن ينصرف إن شاء الله. وإن شاء الله نعدكم ليلة أخرى يعني نتكلم بما تفهمون إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى جعلنا من أهل القرآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى حنا قد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أمة القرآن الكريم. marka waxaa la yidhi muxaadaradu waxay ku saabsan tahay qur-aanka iyo fadligiisa iyo waxoogay taariikhda xifdiga ama barashada qur-aanka Soomaaliya. bal intii ilaahay naga waafajiyo ayaan wax ka oranaynaa, inkastoo mowduuca qur-aanka ku saabsan iyo ka hadalkiisu oo u baahan yahay muxaadaraad aad u fara badan iyo waqtiyo badan. allahna waafajiya in sha allahu tacaala. marka koobaad, qur-aanku walaalayaal waa hadalka ilaahay jala jalaaluh. fadli intaasaa ugu filan. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. الله جل جلاله iyo khalqigiisa miyaa la isku soo qaban karaa? miyaa la isbarbardhigi karaa? sidaasoo kale ayaan hadalka ilaahay iyo hadalka makhluuqaadkana aan la isu soo barbardhigi karin. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. kelimadu sideedaba qiimaheedu waa qiimaha meesha ay u nisbo sheeganayso ama qofka ku dhawaaqa ama ku hadla ayay la qiimo tahay. oo hadda kelimadda ninka caadiga ee meelahan iska jooga oo odhanayo way ka duwan tahay kelimadda ninka mas-uulka ah ama waddan madaxweyne ka ah ama wasiir ka ah. kelimadda uu yidhaah iyo kelimadda nin shacbiga ka mida uu yidhaah isku qiimo ma ah. yacni dadku isku si u qiimeyn maayaan. boqorada iyo madaxweyneyaashii iyo waxa la mid ah haddii xataa salaan ay isu diraan, raadiyaasha idaacadaha iyo telefisyoonka laga sheegaya salaan bay direen. adigu haddaad kun goor maalintii cid salaanto telefisyoonku kuma sheegayo, raadiyahana lagaa sheegi maayo. maaha macnaha in lagu xaqirayo, waxaa weeye sidaasaa fitradu ilaahay u sameeyey ay tahay. kelimadda qiimaheedu waa qiimaha meesha ay ka socoto iyo qofka loo nisbaynayo meesha loo nisbaynayo. sida hadda maalan ilmaha yar kelimad buu ku dhawaaqayaa ama arrin buu odhanayaa. arrintaas uu yidhaa ama sidaa uu hadlay qofka dhegaysanayaa wuxuu dejinayaa booska uu u dhigmo ilmahani. maalan waxaa laga yaabaa inuu yidhaha aabbahay baa baabuur ii soo gaday, isagoo kuu sheekaynaya. hadduu doonad wuxuu ku odhanayaa aabba maanta ama hooya diyaarad buu ii soo gaday ama hooya diyaarad buu ii soo gaday.
markuu saa leeyahay ilmaha yar u fahmi maysid inuu diyaaradda weyn ee lagu duulo ee lagu safro u jeedo waxaad u fahmaysaa wax lagu ciyaaro inay tahay soo sidaa maaha walow yuusan isagu kuuba waadixinin oo ku caddaynin laakiin adigu saasaad u fahmaysaa maxaa yeelay waxaad la qiimo dhigaysaa kelimadda ka soo baxday kelimadda meesha uu isagu martabada uu joogo وعلى هذا فقس هذه أردت أي سده تهي كلمة إلهي حقي سكتم هذا القيمة هذا كور رمى مركا ملك الملوك ذو الجلال والإكرام فهي أفضل الكلام مركا هذا الإلهي وأفضل الكلام وهذا الإلهي هذا الغير كيسنا ليس مصو barbardhigi kara laysumaba nisbayn karaba waxooga in dadka la fahansiiyo buu nebigu saa u lahaa wafadlu kalaami illaahi calaa saa'iri alkalaam tafhiiman linnaasi buu saa u yidhi mooye maba laysa soo barbardhigi karo hadalka ilaahay ee buuruhu ay xambaari waayeen kama qaala rabbuna jala jalaaluh low anzalna hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati illah وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بوره أي حنباري كروايين با إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كحنبارسي وأتيسيري وأسهلي إن يكون واقعان أو يكون هضنان أو يدقيستان هذا من تيسير الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فاقرؤوا ما تيسر من القرآن haddaan ilaahay subxaanaه wa tacaala taysiirin lahayn ama uu sahli lahayn uma sahlanaateen kuma sahlanaateen inaad kelimad xaraf qura oo hadalka ilahay ad ku dhawaaqdo bal ee kuma sahlanaateen inaad maqasho inaad dhegaysato walaakin waa taysiiru min allah walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir qur'aanka ilaahay walaalayaal waa hadalkaa weyn ee cadiimka ah ee rabbigeen jala jalaaluhu uu ku soo dejiyey calaa qalbi nabiyina muxamadi sala allahu calayhi wasalam nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam ad la socotaan si aad la socotaanba wuxuu ka dhashay oo ku dhex koray qowmkiisii reer quraysh ahaa ee baadi meeshii ugu dambeysay taagnaa baadi meeshii ugu dambeysay gaadhay ee asnaam iyo dhagxaan iyo waxyaalo geeda ay ka qoreen oy gacantooda ay ku samaysteen caabudi jiray bal cibaadada ay caabudayaan heer ay gaarsiiso in ay ilmahooda oo iyagu dhaleen iyaga dartood hortooda ku gowracaan qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilm وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ضلال meeshii ugu dambeysay bay ka taagnaayeen qowmkaasaa nabigeennu sala allahu calayhi waaalihi wasalama ka dhex dhashay raxmatullaahi tacaala iyo naxariistiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala daymootay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala go-aamiyey وqadر وqضى inuu ka soo dhex saaro waaxida minhum rajula minhum siduu qur'aankaba ku yidhi waa ka uu leeyahay subxaanahu jala jalaaluhu alif lam ra tilka aayaat اlkitaabi اlxakiim akaana linnaasi cajaba an awxaynaa ilى rajuli minhum an andir الnaas wabashir اladiina aamanuu أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين رجل أو منهم بؤها صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الله تعالى إلهي أرنتن ونبينا عليه الصلاة والسلام الدياريي وتلقلي إنه خير الأنبياء ونقضو نبي ذكي قدام بيه ونقضو تهيئ سميه ودياري
marka nabigeenu sala allahu alayh wasalam say ku barbaareen qowmkiisu kuma barbaarin, waxyaalaha ay ku dhacayeenna kuma dhicin, sanamna ma caabudin, ilaahay baa ka dhowray, allah ka xifdiyey jala jalaaluhu, yaraantiisii baa ilaahay tahiray. waxaa dadkiisu ay ku jiraan inay aada u foolxun yihiin wuu arkayey, hase ahaatee meeluu ka bilaabo garan la'aa, siduu uga joojiyena wuu garan la'aa. waa markuu ilaahay leeyahay wawajadaka daalan fahadaa, ay waxuu ka baadiyeysnaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dariiqat alhidaaya, dadkiisu inay qalad ku jiraan wuu arkaa, laakiin suu hanuuniye garan maayo, wuxuu kala hadlay ila waxba looma waxyoonine. marka nabigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam min yaraantiisii way la foolxumayd waxa qowmkiisu ay ku jiraan, lianna fitradaaba diidaysaba. qur'aankuna wuu ku soo celceliyaa in badan fitrat annaas, sida ilaahay dadka fitrat allah alatii fatara annaasa calayha, in koonkaani rabbi leeyahay, in makhluuqaadkan ayna iska samaysmine mid sameeyey uu jiro, kaasina uu mid qura uu yahay. mulkigan iyo boqortooyadan iyo maaragtay nidaamkan cajiibka ahee aan isdaba maraynin ee shaqaynaya habeen iyo maalin, qorax soo baxaysa oo dhacaysa, oo aan weligeed min maalintii ilaahay abuuray ilaa yowmi alqiyaama aan isbedelaynin, oon ilbiriqsi soo daba maraynin. waxaase iskama ahaanin rabbi baa sameeyey. fitradu saasay odhanaysaa, walaakin shaydaanka baadiyeeyey oo waxyaalo kaloo xunxun u qurxiyey. kolka baadiyeynta uu shaydaanku dad kala baadiyeynaya baa kala darajaadaho, kuwaasaa ugu foolxun. waxaa ugu foolxun wax isagoo ilaahay bani aadam ka dhigay oo sharaf yeelay oo qiimo u yeelay, wuxuu isagu gacantiisa ku samaystay inuu caabudo. bal heer waxay gaarsiinaysaa ay timirta intay ilaah ka samaystaan hadhow ay caabudo ay cunaan, markay gaajoodaanna waa cunayaan, marna ilaah buu u yahay. heerkaasay ahaayeen. maxabada iyo kalgacaylka asnaamta quluubtooda uu shaydaanku u geliyeyna waxay keenaysay inay ilmahoodaba u gowracaanba. nebigu sala allahu calayhi wasalam baadidaas iyo dalaamka iyo mugdiga koonkan oo dhan oo ku jira ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa diyaa'a iyo nuurka buu ilaahay qalbigiisa ku soo tuuray. wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina, waaba ruuxba. fakaana alkowna kullahu, kownkan oo dhanba wuxuuba ahaa jasad oo bilaa ruuxa. waxaa ruuxu noqday kalaamu اllahi aladii huwa alqur'an wa huwa alhidaaya, ayaa ruuxu noqday. ruuxan min amrina ma kunta tadrii ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuura nahdii bihi man nashaau min cibaadina. nebigu calayhi الصalaaةu wassalaam isagoo keligiis meel gaaru xiraa yani ku ictizaalay oo halkiisaas rabbigii ku caabudaya, yataxanaثu bimacnaa cibaada laysa cibaado uu dhaxlay ma aha ma uu arkee, wainamaa cibaadadiisu waxay baa la yidhi tafakur iyo juluus iyo fikir iyo inuu fikiro. waxaan isuma dhigmaan koonkan khaaliqa abuuray rab اlcaalamiina iyo malik اlmuluuk duljalaali wاlikraam ee dadka u nicmaynaya, wax alla waxay doonayaan siinaya, wahum yacbuduuna hayr allah. arrintani arrin saxa ma aha. halkaasuu ku cibaadaysan jiray cibaadaة الtafakuri. dabadeed rabbigeen baa ku soo dejiyey qur'aanka hadda maanta aynu akhrisanayno ee kalaamu ullaahi ah. iqra' bismi rabbika aladii khalaqa bay ka bilaabatay. jibriil baa halkaa ugu yimid, waad wada maqasheen qisadaas. ma uusan filaynin, ballan horena uma sii dhexaynin, kamay dhexaynin. waa uu yimid, waa uu qabtay. weliba aad buu yani jahdi wuxuu ku sameeyey, yani waxaad odhan kartaa wuu tuujiyey oo wuu isagoo oo dhan buu ruuxruuxay oo naftiibaaba inay ka baxdu ka baqay. dabadeed waa sii daayey, wuxuu yihi iqra' aqri. wax ma aqriyo, dee nebigu waxba ma aqriyo. nebigu qur'aanka ilaahay waa qalbigiisu ku soo dejiyey
afkiisana uu ku aqriyey laakiin gacantiisa weliga waxba kuma qorin wax la qorayna ma akhrinin wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaab walaa takhutuhu biyamiinik idan lartaaba almubtiluun marka nebigu min sifaatihi oo lagu ammaana waxaa ka mida ummi buu ahaa laa yaqra'u walaa yaktub dabadeed tii unbuu u sheegay jibriil oo wuxuu yidhi waxba ma aqriya anugu haddana waa ku celiyey mar labaad oo xanuujiyey iqra' oo sii daayey markii saddexaad ayuu hadalkii ilaahay uu waxyooday buu ku dul akhriyey iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram iqra' bismi rabbik magaca rabbiga ah waa awal kelima oo min kalaami illaahi qalbiga nebiga ku dhacda dhegtiisuna ay maqasho waa wixii uu horay u daydayayey waxayna ka bilaabatay alsaqu shayin biاlinsaani wahuwa arububiya bismi rabbik rabbigaa kii ku barbaariyey kii ku abuuray kii kuu nicmaynayey ilaahay jala jalaaluhu magacyo badan buu leeyahay walaakiin magaca rububiyada tusinaya ayaa alsaqu shayin biاlinsaani ah fii maqaami alxamdi lilahi tacaala iyo jeclaysiinta marka qofka la jeclaysiinaya rabbigiis rububiyadaa lagala hadlaa iqra' bismi rabbik rabbigaa waa kuma aladii khalaq kii wax abuuray waxyaalo badan buu rabbigeen abuuray yacni min sifaatihi baa waxaa ka mida annahu khaaliq wax kasta oo la abuuray isagaa abuuray laakiin hadda arrinta loo jeedaa ee qur'aankan loo soo dejinayo makhluuqaad fara badan baa adduunka ku nool ama makhluuqaad fara badan baa ilaahay adduunka sameeyey ama ha noolaadeen ama jamaad ha ahaadeen waxay doontaaba ha noqdee hadda iyaga looma wada jeeday ee insaankaa loo jeedaa markaasaa si khaasa waxaa loo yidhi khalaqa alinsaan iqra' bismi rabbika aladii khalaq kii abuuray muxuu abuuray khalaqa alinsaan insaankuu abuuray oo hayrulinsaani ma abuurin miya wuu abuuray lakiin hadda adaa lagu jeedaa warkaan adigu kugu socda hadalkan adaa lagu soo dejinaya ayuha alinsaan khalaqa alinsaan min maada khalaq muxuu ka abuuray insaanka min calaq calaq buu ka sameeyey waa xinjir dhiiga weeyaan mufradkeedu calaqa jamcigeeduna waa calaq maxaas arrintan loo xusay baa la yidhi si gaara loogu xusay ilaan insaanka takwiinkiisa iyo abuuritaankiisu maraaxil badan buu soo maraa marxalo maraaxisha ka mida maba jirinba ka bacdi ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu ka abuuray ciiduu ka abuuray oo labadaas asliba waa ilaahay waa noo nisbeeyaa insaanka in nudfana laga abuuray in calaqana laga abuuray inii khaaliqun basharan min tiin basharan min tiin waa aadam kulli dadkao dhanna ilaahay isagoo dadka la hadlayana wuxuu yidhi annagana wada hadlaya wuxuu yidhi huwa aladii khalaqakum min turaab lanna asalkeennaa turaab laga ahaa aabbaheen baa turaab ahaa ciid baa laga abuuray khalaqakum min turaab uma min nuطfa uma min calaqa turaabtu marxalay ahayd nuطfa oo candhuufa wاlmaqsuudu biha almaniy waa siduu rabbiga noo sheegay waa kuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala falyandur اlinsaanu mima khuliqa min maaءin daafiq yakhruju min bayni الsulbi wاtaraa'ib marxalata nudfa marxalay ahayd marxalo calaqa la yidhaah baa jirto oo xinjir dhiigahoo ururtay oo raximka alummahaat ilaahay ku abuuray hadihi hiya marxalat alcalaqa waxaa si gaara loo xusay baa la yidhi waa marka uu insaanku ugu daciifsan yahay ee uu ugu taag daran yahay nudfa markuu ahaa mustawdac buu ahaa oo meel buu ku kaydsanaa oo ama dhabarka raggu ama haweenka maaragtay laabtooda marka way iska ordayeenoo wax mushkilaa meeshaasi ma jirin markuu nudfo ahaa laakiin markuu calaaqo noqday oo xinjir dhiiga noqday oo weliba intuu ilmogaleenka hooyadiis intuu galay isagoo wax musmaara meesha lagu dhejin
wax koole iyo lasqana lagu dhajinin halkaa ku dhex jiray isagoo xinjir yaroo dhiiga markaasuu ugu taag daraa markaasuu miskiin ahaa markaa iyada kan ka warhayey ee ilaalinayey ee abuurayey ee u nicmaynayey ee ka ilaaliyey inuu meelahaas hooyadiis markii ay socoto inuu ka soo daato ka soo dhaco waa rabbigaas weeyaan jala jalaaluhu fayaa muxamadu muxamadow adaa lagula hadlayaa wa min khilaalika dadkao dhan baa lala hadlayaa kuwa meesha fadhiya hadda iyo kuwa iman doonaa lala hadlayaa rabbigaa magaciisa iqra' bihi aladii khalaqa alinsaana min calaq waa awal tacriif iyo isbarid uu rabbigeen isbarayo insaanka uu isbarayo anaa calaqadaa kaa sameeyey miyaad xusuusataa marka mise waad ilowday hadda maanta waad weynaatay magac baad yeelatay xuquuq baad yeelatay lacalla wacasaa mansib iyo makaano iyo baad yeelatay walaakin yowm min alayaam oo waxaa ku soo martay aad calaaqa ahayd xinjir yaroo dhiiga aad ahayd halkaa aad ku jirtay dulumaadkaas oo raximka ummiga aad ku jirtay yaa ku ilaaliyey yaa kaa warhayey yaa kuu nicmeeyey yaa inaad meelaha aad ka dhacdo oo hooyadaa ka soo daadatay yaa kaa ilaaliyey allah aladii huwa man rabbuk rabbigaa ah ee ku barbaariyey ee ku abuuray ee kuu nicmeeyey ee nicmadiisa ilaa hadda aad ku jirto aladii khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam marka majlis kaste oo walaalayaal la fadhiisto arrin kasta oo laga hadlo mowduuc kastaoo laysugu yimaado nabigeenna calayhi الsalaatu wassalaam iyo ambiyadii oo dhan iyo sunnatu اlqur'aani fi اdacwati ila allah taasaa laga bilaabaa kow rabbi baa la isjeclaysiiyaa leanna waxa la ysugu iman ama caawa halkaan isugu nimid ama aan iskala hadlayno ama aan iska waaninayno waxaa weeye inaan rabbigeen jala jalaaluhu ateecno oo awaamirtiisa qaadanno oo sunnadii nabigeenna ku dhaqanno calayhi الsalaatu wassalaam marka awaamirta ilaahay in la qaato nawaahida uu naga reebayna laga fogaado waxaa weeyaan waa takaaliif waa mashaqa waa waxyaalo culays oo lagu saaray weeye waa waxyaalo abuuritaankaaga si haddii la fiiriyo ka soo horjeeda insaanka abuuritaankiisu awaamirta ma jecla nawaahidii waxa laga nahiyeyna waa jecel yahay oo waaba tuu rabbigeen noo sheegay jala jalaaluhu wanaha الnafsa can اlhawى waatuu nebiga leeyahy calayhi الsalaatu wassalaam xufat اljannaةu biاlmakaarih waxufat الnaaru bالshahawaat wax alla waxa wanaagsan ee camal ahee jannada ku geynaya naftu way necab tahay makaarih baa ku xidaaban ay naftu ay kahanayso oo salaada iyo cibaadada iyo daacada iyo waa dhib weeye oo naftu maaragtay way kahanaysaa oo ma jecla waxyaalahoo ilaahay nafta uu ka nahiyeyna naftu way jeceshahay marka takaaliiftaas iyo awaamirta inta aan laga hadlin aan ma garanaysaa laysu sheegin waxaa laga hormariyaa oo had iyo goor laga yaabaa ducaadeennuna inaan iska ilowno ama ka ilduufno horta bal aamirkan wax amray naahigan wax nahiyey jeclaysii kan intaadan u sheegin amarkiisa bal horta jeclaysii bal horta uga sheekee bal nicmooyinkiisa dareensii oo waxaa tidhaha yowm min alayaam ninkaagan weynee magaca lehe fulaane sheekh fulaana ama xaaji hebela hadda ama wasiir hebela ama waxaa doontaba noqee ama cala alaqal yani magac weyn wata yowm min alayaam calaqaad ahayd oo ogow nudfaad ahayd calaqa ka bacdina mudqaad noqotay gabal yaroo hilib ah mudqa maxaa loogu bixiyey waa inta yani mar qura la calaanjinaya ama la cunayo hilibka ah hilib yar baad ahayd hilib yar ayaad ahayd ka bacdi baa ilaahay mudqadaas hilibkaa yar gabalkaa yare hilibkaa baa ilaahay subxaanahu jala jalaaluhu cidaamkaaga iyo lafahaagan ka sameeyey nafta lafahaagan naftooda waayo walaakiin markaas aad bay u yaryaraayeen markaasaa ilaahay tarkiib sameeyey oo yani lafihii madaxa iyo lafihii daamanka iyo lafihii garbaha iyo kuwii ma garanaysaa feedhaha iyo kuwii gacmaha iyo kuwii lugaha waxa dhan isku rakibay oo markaasaa ilaahay nidaam cajiibla u sameeyey
oo markaas ay laazim tahay inaad qofka xusuusiso tiraahid oo anagu waan wada xusuusano oo adigu aad xusuusato oo kan hadlaya uu xusuusto soo ilaahay ma awoodin inuu hal laf iga dhigo kulligay aan marnaba liicaynin hal lafka qura ah sabba waaxida sida birtaas meesha taagan ama qorigaas aan dhinacna u liicaynin ilaahay waa kaa dhigi kari walaakiin wuxuu kuu sameeyey 360 xubnood oo maaddo lasij ahoo jilicsanoo u dhexaysiiyey lafaha si ayna isu xoqin oo dhibaato aynooga dhicin waad aragteen hadda marka oo la yar weynaado oo jilbaha iyo waxay ku yar xanuunayaan waxay ku leeyihiin dhacaankii baa ka dhammaaday oo dhacaankaasna goormaad ogaatay yaa kuu sheegay dhacaankaa lagu leeyahay jilbihii bay ka dhammaadeen jirkoo dhan bay ku jiraan fartaasay ku jiraan fartaas 3-4 dhacaan baa ku jirta oo lafaha kala ilaalinaysa haddii kale xanuunkeeda umaad adkaysateen iyadaa jilbka ka daran laakiin waxaad sheeko aad ka warhaysa ma ahadu xubnahaasaa ilaahay kuu sameeyey oo islaalaabaya lafaha baa berigaa ilaahay abuuray oo weliba 3 mugdi hoostood ku abuuray yakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii ظulumaatin 3 mugdi hoostood waxaa hadda marmarka qaarkii waxaan idhahaa khaasatan aniga waxaan aada u marmaraa qolooyinkeenna aan soomaalida oo yurubta iyo gaalada iyo maraykanka iyo dhulalkaa tegayo yacni aada ugu sii imbihaarsan oo la yaaban farsamadan cusub ee dadka hadda ma garanaysa kulligeenba saasaan iminka wadannahay oo waxaanu ku mashquulsannahay masnuucaat albashar baa naga mashquulisay inaan makhluuqaat illaahi ka fikirno oo fikirka xagga makhluuqaadka ilaahay iyo cadamadiisa iyo weynaantiisa iyo xataa naftaada wafii anfusikum afalaa tubsiruun waa amru rabbaani laakiin inta badan kama sheekaysano mana isxusuusino qofkuna ma xusuusto laakiin wuxuu xusuusan yahay jawaalka iphone hadda soo baxay iyo kii kale muxuu ahaa saaxiibka ahaa jaragsiga hadda soo baxay iyo alaabtana hadda la soo saaray iyo kanaa la keenay iyo waxaana la soo kordhiyey waxaanaan ku indha sarcaadsannahay horta kuwaan aad la yaaban tahay waxaan ay sameeyeen waa horta waa kuwa sameeyey waa insaanka ilaahay abuuray wey ثانيا meesha uu ku abuurayna waa 3 mugdi hoostood taxta ظulumaatin 3 ظulmaة الbaطن وظulmaة الmashiim وظulmaة الraxm 3 mugdi hoostood baa insaanka ilaahay ku abuuray faman aqdaru minhu laa ilaaha ilaa hu huwa alqaadiru calى kuli shay insaanku meel mugdi waxba kuma samayn karo waxa inuu ku sameeyo maahane maba dhaqaaqi karo hadduu dhaqaaqana waa dhacaya ama meel buu ku dhacay mudqadaasaad ahayd cidaamkaasaad ahayd ka bacdi in yar baa ilaahay ku abuuray shay-an fa shay-an halkaasuu rabbi kugu barbaariyey janiinkaas baad ahayd ma garanaysaa caloosha hooyadii ku jira adoo halkaa ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta ku siiyey oo ku nooleeyey sheekadan inta badan marka laga sheekeynayana dadku maskaxdoodu meelahaas iyo isbitaallada iyo kuwa hadda kuwa dhashee yaryar bay aadaan kan hadlaya isagu inuu naftiisa ka hadlay iyo kan lala hadlayo hadda meeshan fadhiya inta badan kama fikiro anigan weyn maa mar hore sidaa ahaa ha adigaas weyn baa sidaas ahaa oo ilmo yar ahaa oo janiin fii batni ummika ahaa oo meelaad wax ka keenta maada garanayn berigaas kan ku arsuqay waa allah jala jalaaluhu oo xataa af wax kama cuni kartide meeshaad wax ka cuni jirtay ma taqaan berigaa yaa garanaya meeshaad wax ka cuni jirtay sheekh nuur xaggee wax laga cuni jiray subxaana allahi almalik alcala xudunta iyo mindhicirka hooyadaa baa ilaahay isku xiray halkaasaa laguu soo marin jiray quudkaaga iyo risqigaaga halkaasay kuu soo mari jirtay laa wasaarad baadan tegi jirin walaa meel baadan ka dawaami jirin walaa shaqaadana walaa axsan walaa abadan waxaad ogeyd ma jirin aladii razaqaka huwa allah saasaa waxaa la leeyahay yaqiinta tan ugu wanaagsanee ilaahay jecel yahay hadda kaa rabo adigoo 40 ama 50 jira ama 30 jira ama saad rabto intaad rabtoba jir yani hadda marka in aad rabbigaa ku kalsoon tahay kalsooni sidii beriga aad ku kalsooneed calooshooyda aad ku jirtay berigaa calooshooyda ku jirtay meel miyaad ka warhaysay cid miyaad la hadli kartay war hebel hal ii raac miyaad taqiin bal meel heblaha la igala soo hadla miyaad garanaysa
yaa ku arsuqay yaa wax ku siiyey sow allah soma haddana maanta isaga unbaa ku siinaya huwa yarzuquk asbaabtan daahirka ah waa imtixaan alasbaab hiya laysat raaziqa wax ma arsuqda iyadu waa lagugu imtixaanay lidaalika xataa haddaad adigu isxusuusan weyday yaraantaadii ilaahay makhluuqaad fara badan ood arkaysu ku xusuusinaya wuxuu ku leeyahy waka'ayin min daabbatin laa taxmilu risqaha allahu yarzuquha waإiyaakum wahuwa الsamiicu اlcaliim risqigeeda maba xambaaran karto mana shaqaysan karto meella waxba kama keeni karto yaa arzuqa allah iyaga keligood maya idinkana isaga unbaa idin arzuqa walaakin laa taclamuun ma ogey asbaabtan marka daahirka insaanka ilaahay baa u soo saaray dadka berigii ugu horreysay meel laga baray ma jirin in dhulka inta la qodo oo maaragtay la faago ama la hagaajiyo ama la falo beer lagaa sameeyo oo waxay soo dhalayso ama dhulka inta la faago biyo lagala waxaasoo dhan dadku maynan ogeyn waa asbaab daahirahoo ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey weeyaan oo uu baray weeyaan walaakin laysat hiya asbaabtaasi ma aha iyadu ma aha raasiq ma aha alraasiqu huwa allah in allaha huwa alrazaaqu du lquwati اlmatiin marka masأalaة الrububiya aan halkaas dib ugu noqono waa masأala muhima jidane caloosha hooyadaa markaad ku jirtay muddadaadii kuu dhammaatay kan ku soo saaray waa rabbigaaga huwa allah isagaa bannaanka kuu soo saaray waddadii aad soo maraysayna kuu sahlay dabadeed dibadda markaad u soo baxdayna makhluuqaadka kan ugu daciifsan baad ahay xataa waad la socotaan ariga waxarta yaree dhalata ayaa adiga kaa dhaqdhaqaaq fiican iyadu markay dhalato wax yar iyadoon joogin markiiba waa iska socon kartaa laakiin adigu imisay muddo qaadatay ilaa aad fadhiga barato istaag iyo socod ma aha fadhiga maalintii aad baratay eed fadhiisatay in reerkaagu ay maaragtay ixtifaal sameeyeen lama socotid baan u malaynaya waa ilowday way farxeen aad bay u farxeen yani hooyada way farxday u fadhiistay ilmihii waa fadhiistay subxaana allahi almalik alcalaam maalintii ma garanaysaa socod iyo la gaarayna warkeedba joojiba socod markii aad socotay waxay ahayd farxad iyo reerreyn bay ahayd kan socodka ku baray huwa allah rabbiga jala jalaaluhu caloosha hooyadaa markaad ka soo baxday ee dibadda aad u soo baxday wax aada u taag daran baad ahayd awood maadan lahayn wax nafci oo wax kuu tara ma soo qabsan kartid wax ku dhibayana iskama celin kartid wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shayئa wajacala lakum الsamca wاlabsaara wاlaf'idata lacalakum tashkuruun walaakin yaa xusuusta yaa ilaahay ku mahadnaqa shukran yaa ilaahay ilaah ilaa qaliila in yar mooyaane dalika rabu اlcaalamiin rabbuna warabu kuli shay markaad soo baxday caloosha hooyada ka soo baxday maalintii kugu ama maalin ama habeen kay doontaba ha noqotee quudkii aad caloosha hooyada ku qaadan jirtay xariggii lagu soo marin jiray waa lagaa gooyey xariggii haddii la gooyo oo bannaanka aad u soo baxday cuntaad doonaysaa markaa ilaahay afkiiba ku furay oo afkiiba wax ka cuni kartaa caloosha hooyada intaad ku jirtay afkuma shaqaynayn xuduntaad wax ka cunaysa hadda waa soo baxday afkii baad kala furtay codkii waa kuu furmay wax cuntaad doonaysaa laakiin dadkii maalintaas reerkii waxay karsadeen beriis iyo baasti iyo alaabtaasay karsadeen iyo hilib iyo ma cuni kartid marka see wax lagu yeelay bal fiiri raxmadda ilaahi subxaanaه wa tacaala mar alle markaad soo baxday baa caano ilahay hooyadaa ka keenay oo caanahaasi xaggey ku maqnaayeen markii hore marar badan hooyadaa waxaa soo martay iyadoo iska gabadha iskoo kada iyadoon uur markaa xataa uur lahayd caano ma jirin maalintaad soo baxday soo bixitaankaaga iyo caanihii baa wada socday yaa isku beegay rabuk liyurabiyak muxuu saa u yeelay inuu adiga ku barbaariyo lianna markaa iyada ah wax kale kuma suubadaan cunto kalena kuma anfaxayso xataa waxyaalahan dadku marka dambe ay sameeyeen oo waxaan sanaaciga aho laban sanaaciga iyo waxan oo dhan wax wanaagsan ma aha way ka sheekeeyaan inayna wanaagsanayn oo hadda waa la socotaanoo yani aad baa looga sheekeeyaa fawaa'idda alridaaca aطabiiciya iyo faa'iidada ay leedahay
canihii waa yimaadeen adigina waa timid laakiin yaa ku baraya meeshaan sida wax loolaga soo baxo kayfa tardac iyada naftirkeedu waa camaliye u baahan hawl iyo cilmi cilmu ridaaca man callamak rabuka allah aladi laa ilaaha ila hu aladi acطى kula shayin khalqahu ثuma hadaa kan shimbirta baray inay intay tagto oo ay meelaha ka soo urursato geedaha iyo caleemaha iyo laamaha meesha ka dhacay guri wanaagsan oo dadku isagoo kale ayna samayn karin samaysay ilan iyaduna kuliyat alhandasa kama soo bixine guriga ay samaysay shimbirta ma aragteen fartase ma geliseen farta haddaad gudaha geliso firaash waxaad u tegaysaa firaashkaaga ka layinsan oo ka jilicsan yaa u sheegay inay gidaarkana adkayso firaashka waxay ku firaashtaa baalasheeda maaragtay iyo bay ku firaashaysa aniga farta waa geliyey waan arkay firaash cajaa'ib lay meesha dhigatay geesahana waa gidaar adag oo dabaysha iyo roobka iyo wax dhan aan karayn yaa baray kuliyadee ka soo baxday fahiya makhluuqat lilah ilaahay ba rab اlcaalamiin rab اlkul rabbigaas subxaanahu jala jalaaluhu weeye kan ku baray in aad caanahan aada hooyada aad ka nuugto huwa aladii rabbaaka haddii dadka kale lagugu sii dayn lahaa kumay bareen kumanay sheegeen af soomaalina ma taqaanid af ingiriisna ma taqaanid af carabina ma taqaanid afaad garanaysa ma jiro waa marka uu rabbigeenna xusuusinayo anagu waa weyn uuna leeyahay wallaahu allah waa kuma aladii kii way akhrajakum idinka soo saaray min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shayئa waxba idinkoon garanay wajacala lakum الsamca wاlabsaara wاlafئida lacalakum tashkuruun walakin qala shaakiruun waqaliilu min cibaadih ashakuur wax uu rabbigeen naga doonaya ma jiro ila اlictiraaf inaad nicmadiisa u ictiraafto oo tiraa rabbii nacam anta rabbii adiga ay abuureen uu jirin adaa maraaxishaas kala duwan een taagta daraan miskiinka ahayna waxba garanayn waxba kala weyn adaa isoo mariyey adaa isoo barbaariyey anta aladii rabbaytanii fa anta rabbii inaad tiraahid intaasuu rabbigeen kaa rabaa oo aad ku mahadisid oo shukran tiraahid haddaa saas tiraahid uu ku lain shakartum laaziidanakum walain kafartum mina cadaabii lashadiid min cajaa'ibi karamka ilaahay waxaa ka mid a cunto aad cuntay ama qada ha noqoto ama quraac ha noqoto ama waxay doonto ha noqoto ooda adigu shaqaba ku lahayn run ahaan de wax shaqo kuma lihid hadda beriiskan aad cunayso yaa sameeyey badarkan aad cunayso yaa sameeyey rootigan qamxiga laga sameeyey alaabta laga sameeyey man sanacahu huwa allah caanaha aad cabayso yaa sameeyey adduunka o dhan hadday isu tagaan dhibic cana ma samayn karaan hal xabo beriisana ma samayn karaan hal xabo oo khudaara ama bahashi maxay ahayd fawaakiha cinabo yar ama tufaax yar ama muuskan soomaalida aada u jeceshahay ee wanaagsan ee jilaaciina dhexda la mariyey ee maaragtay maqaarka ama diirka ku ilaalinayana ilaahay dusha uu ka saaray adduunka o dhan hal xabo moose ma samayn karaan waa meesha marmarka qaarkii aan idhaa qarammaha midoobay iyo kuwa kala tegay hadday isu tagaan kuwa midoobay soo ma jiraan kuwa kala tegayna soo ma jiraan hadday isu tagaan xabad muuse ma samayn karaan xabad beriisa ma samayn karaan haddana intay isu tagaan fiiri hadda maalin dhow ama miyay tageen horta madaxweyneyaasha mise way socdaan meesha isugu tagaan sanad kasta maraykanka hadday sii socdaan miha hadda meesha way tegi doonaan mar kastana way tagaan waxay ka socdaan dhulkii ilaahay abuuray bay ka wada socdaan oo nin walbaba dhul buu matalaya meesha ay isugu tagaan wax kasta way ka sheekaysanayaan laakiin hal mar ma dhahayaan ilaahu waxaan isugu nimid inaan kuu mahadnaqdo ilaahu dhul baad noo samaysay adaa noo sameeyey aada noo samaysid adigaa noo haya oo haddaad sii dayn lahayd meesha uu ka duuli lahaa oo cer baad noo samaysid oo qorax baad noo soo saartaa batrool iyo baansiin iyo waxba aan naga rabin ma maqasheen iyagoo ka sheekaynaya ma dhahayaan shukran ma dhahayaan wuu arkaa marka inay isu imanayaan madaxweyneyaashii adduunka o dhan ba isu yimid halkaasay imanayaan waa ku kala tegayaan waa mahadsan tahay ma dhahayaan wamaca daalika kama goynayo risqiga kama goynayo waa iska daynaya
waxaaba laga yaabaa iyaga inuuna waxba ku falaynin laakiin masaakiinta meelaha iska joogta ee ma garanaysaa isaga u mahadinaysa dartooduun inuu iska daynayo ilaa mar hore uu iska burburin lahaaba baabain laha hadduu doono walaa yubaali bihi dalika rabu اlcaalamiin rabbuna warabu kuli shay marka inaan rabbigan had iyo goor isxusuusino oon isjeclaysiino ayaa walaalayaal muhim ah muhim jiddan wuxuu yidhi caanaha fii suurati annaxl oo suuratu nicamna lagu tilmaamo oo nicamka ilaahay jala jalaaluhu marka uu ka sheekaynayo huwa yataxababu ilayk wuu iskaa jeclaysiinayaa huwa haniyun canka hani buu kaa yahay in yashaa yudhibkum wayaati bikhalqin jadiid hadduu doono waxa adduunka joogo dhan intuu mar qura ilbiriqsi wada baabi'iyo ayuu kuwo kale iska samaysan karaa soo ma garan wamaca dalika iyadoo saas tahay buu haddana iskaa jeclaysiinaya oo maaragtay nicamkiisa kaaga sheekaynaya wuxuu yidhi waina lakum fi lancaami lacibra wardad yahow xoolaha cibra idinku sugan lacibra yani wuxuu yidhi mid la sharba waa la fahmay laakiin lacibra maba laga fikiraba maxay cibradaasi tahay nusqikum mima fii buطuunihi min bayni farsin wadamin labanan khaalisan saa'igan lishaaribiin waxaanu idinka waraabinaa min bayni farsin wadamin dhiig iyo uus dhexdooda waa laba maadoo labaduba najas yihiin oo labaduba riixa xun leeyihiin labadaa maado dhexdooda ayaan caano cad oo macaan oo khaalis ahoo laga barax tiray oo aan waxbaba kaga jirin laa dhiiggii walaa uuskii aan shaqaba ku lahayn baanu idinka waraabinaa oo idinka siinaa soo cibro maaha soo arrin aad ku cibro qaadataanoo aad ku fikirtaanoo awoodda ilaahay aad ku rumaysaan rabbigaas isaga ahe waxaasoo nicmooyina ku siiyey hadduu ku yidhaah kulankayga rumee oo yowma alqiyaama intaan markaad dhimato inaan dib kuu soo noolaynayo oo dabadeed aad ila kulmayso rumee hadduu ku yidhaha dee rumee nacam uuqinu bihi leanna awooddan uu ku tusay ayaa haddaad ka fikirto ku solansiinaysa oo ku waafajinaysa inaad taas ka fikirto walidalika ilahi wuxuu yidhi yudabiru اlamra yufasilu اlaayaati aayaadka bitafsiil jumlana marmar ilahay waa u sheegaa khalaqa asamaawaati waalardi waa jumla marmarna tafsiil baa ilaahay siiya bixiya oo hadda waxaan laga sheekaynaya marmarka qaarka hadda aan yar sheegayno waa nooc min atafsiil khalaqa alinsaan waa jumla laakiin markaad nudfadii ka hadasho ood calaqa ka hadasho oo taagdaradiisa ka hadasho oo isagoo ilka lahayn soo baxay kasoo oo maalintuu cunto u baahday intii hore ee caanaha hooyadiis keliya uu cabayey ilka uma baahnay ilkuhuna mashaakil bay hooyadii u keeni lahayn laakiin maalintii uu cunto u baahday baa ilaahay ilka u soo saaray oo maado cusub oon horay jirkiisa ugu jirin ah oo lafna aan ahayn laakiin lafta u eg oo la hagaajiyey oo la qurxiyey oo yani la kala qaybiyey oo qaybna laga dhigay hanaaya iyo foolal wax lagu goosto qaybna laga dhigay micye iyo wax lagu jabiyo qaybna maaragtay waxa weeye waa gowsaha oo wax lagu raamsado waxaasoo qaybo ah oo adag oo xoog badan oo haddana carab yar oo jilicsan oo miskiina loo dhexaysiiyey oo haddana maaragtay nabadgelyo dhexdooda la dhigay waa nooc min atafsiil oo ku jeclaysiinaysa rabbigaa subxaana wa tacaala beri buu nin igu yidhi sheekhii ducee xanuun baa haye wuxuu yidhi candhuufta ay ka tagtay candhuuf ma lihi waxaan yidhi sheekhu candhuufta maxaad ku falaysa yani candhuuf baa iga tagtay cudur ah ma ana hadda ka hor runtii ma ana maqal yani waxaan maxay kuu tartaa cabaar buu aamusnaa oo yani sidii ma garanaysaa fikiroo kale dabadeed hadal kelimad aana ilaa hadda iloobin buu yidhi wuxuu yidhi insaanka nicmada ilaahay garan maayo ilaa markii laga qaado mooye markuu qofku nicmada waayuu gartaa hadda waxaad weydiinaysaa candhuuf waxay ku tahay anigu wuxuu yidhi candhuuf waxay tarto horta cudurkan meelo badan baan maray adduunka weli waa liiga daaweyn la'yahay laakiin waxay ii taraysa mid un baan kuu sheegaya hadda bariiskan aad cunayso adigu adoo ku raaxaysanaya oo ku macaansanaya baad cunaysaa laakiin aniga bariiska malqacad bariisa ma cuni karo ilaa aan bakeeri biyo ah ku liqa mooye lianna dhacaankii soo bixi lahaa ee intuu ku dhaco jilcin lahaa weeyaan tan kan iga maqan ma haysto markaasuu weliba intuu carabkiisa soo saaray uu gacantiisa ku xoqay buu itusay saa qoyaanba male wuxuu yidhi taa waxaa ka daran cuntadu say doontaba ha noqotee
neeftan hadda aad qaadanayso hawadan aad qaadanayso ee oksijiinka ah aduu si caadi baad iskaga qaadanaysa wuxuu yidhi aniga 5 daqiiqo ma joogi karo ilaa inaa afka aan biyo ku shuban qooyo mooye marka waxa hadda meeshayna fadhiyo candhuuf inay faa'iido leedahay ka fikri maa nugu jira وفي أنفسكم أفلا تبصرون ما نتفكر في هذا فهذا هو رب العالمين يا إخوتي الكرام مركا waxaan hadalkaas aan u hormariyey isagaan anigu muhiim u arkaa oo ka muhiimsan ay shay aakhar hadda salaada marka aan tukanayno waa salaaduna waa saad la socotaan waa cimaaduddiin waxa weeyaan waa cinwaanu alcubuudiyya inta badan rabbigaa waxaad kula khitaabtaa ama aad kula hadlaysaa maqaam arububiya allahu akbar markaad tiraa waxaad ka bilaabi alxamdu lilaahi rabbi baad odhanaysaa rabbi alcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigoodii barbaariyey marxalo kasta waxay u baahnaayeen siiyey fii kulli waqti man huwa arab kii markaad caloosha hooyada ku jirtay ku quudin jiray ee quudkii kugu habboonaa markaa ku siiyey markaad caloosha hooyada ka soo baxdayna wixii kuu habboonaa oo caanaha hooyada kaa siiyey garanaysaa ee ku baray sidaad ula soo bixi lahayd markaad soo yar weynaatayna ilka kuu soo saaray ilkaha kuu soo saaray ilkahaasi waxay ay qaban lahaayeen oo ay cuni lahaayeenna ku siiyey oo maanta yani risqiga aad cunayso waa min allah walaysa min gayr illah ilaahay baa subxaana wa tacaala ku siiyey waxan wax dadku ay cunayaan oo dhan fahuwa min risqi illah wakuluu min risqihi wey hadduu doonana ilahay uu iska ceshan karaa aman hada aladii yarzuqukum in amsaka risqah bal lajuu fii cutuwin wanufuur fahuwa rabuk markaad rukuucda marka aad ruknigii istaaga aad dhammayso allahu akbar ay tiraa rukuucdo subxaana rabbii baad odhan rabbii alcadiim markaad kor uga baxda waxaad odhan rabbana walaka alxamdu markaad sujuuddana waxaad odhan subxaana rabbii alaclaa haddana waxaad odhan rabbi ikfir lii waad odhanaysaa rabbi ikfir lii allahuma ikfir lii waad odhan kartaa walakina arububiya huna alyaq fi hada almakan lanna rububiyadu waxay ku xusuusinaysaa markaad janiin ahayd calooshooyda ku jirtay eed ka soo baxay taag darnayd miskiinka ahayd haddana miskiin baa tahay walaan anta marbuubu lilah huwa rabuka wahuwa rabu lkowni kulihi makhluuqaadka o dhan rabbigooda huwa allahu caza wajal marka rabbigeenaas jala jalaaluhu cadiimka eh jaliilka eh saaxibu الnicami alati laa tucadu walaa tuxصى lahu kalaamu cadiim ismuhu اlqur'an facalaykum bihi rabbigii kii jecel qur-aankiisa hadalkiisa ha jeclaado rabbigaa inaad jeclaato wa min calaamaatiha waxaa ka mida hadalkiisa inaad jeclaato mid askari ahoo daabit ahoo meeshan jawaazaadka maalin meel aan sugaynay baa wuxuu igu yidhi yani sheekh wuxuu yidhi had iyo goor marka imaamku nagu dheereeyo salaadda waa yani ma jeclin ama waan canaanana ama waa ka xumaanaa maxaa sabab u ah yani su-aal ah kaanahu limaada nastadqilu الsalaa yani salaadda maxaan culays ay noola tahay haddaan iska taagnaano maanta hadal faadi aan hayno ma cuslaysanayno lakin salaadda maxay noola culusta marka waxaan ihi su-aashaas aad su-aashay su-aal kale aan kugu jawaabayaa haddii waxaan ihi macaawa weliba sakda dhexe 12 habeennimo markay tahay haddii lagu yidhaaha wasiirka ayaa kuu yeeray wasiir daakhiliya ilaada daakhiliya ka shaqaysaa soo maha wasiir daakhiliya ku rabo waxaad odhanaysaa waa waqti dambe iga daaya may wallahi aruux buu yidhaha aruux ay waqti mushkila aruux ayib haddaad tagto oo cabaar aad fogto ma dharsan intaad la fadhido hadduu hadal iska sheeke iyo iska galo waa waqti dambe shiida miyaad odhanaysaa may wallahi wuxuu yidhi ajlis maca ay waqti ila alfajr ma cindi mushkila waxaa yidhi kaasi waaba wasiire amiir hadduu yahay ka warran baan amiirka kan ku dalbay hadduu yahay waxaad odhan lahayd waa waqti dambe iga daaya maya wallahi wuxuu yidhi waa hore aan ka tegi lahaa waxaan idhi haddaba adigu isu jawaab adigu isu jawaab
فكيف تستثقل يعني ما أنت وحنا نجمقا الأنس برب العالمين أنسي استئناسك ربي هذا الكيسين جعلان ومركز هذا إير فريسة القرآن آخرين يسمع ما حد سمعنيش ربي قابل مقابلة لا هذا كان كل حد يا الله جل جلاله كيف تستثقل سيكون عسلان يسار ردها وحوي يقينتي بك هم غنو مخلوقا مسكين كأما أمير هالنقطة أما ملك هالنقطة أما وزير هالنقطة أما غفير هالنقطة ومخلوق مسكينه ومربوبه رب جيسو ورب العالمين ناس يدي سنوا بيد الله وح وتري كرا أما وح ولمي كرا أما وح وقبن كرا أما وح وجين كرا أما وح وديدي كرا مجرو إلا بإذن الله كامر كهدي الوير وعرري وجعش حي أو كلن كيسة وح وين بكليه لو ما يصير هدي ما ركت ميعاد لقوسيو لويلا أمير كات كلن لا ذا هاي مال انت هبلة تاريخ وانت هاي ساعة داس لقى ما يقابلنا دي اللو فكيف بالله عز وجل ملك الملوك ذي الجلال والإكرام صلاة مرك هذه ما يسوي سجاد كلن كيسة صعوتا أحدكم يناجي ربه ربي قابل ذم مناجون يسا أطلفق يسا مركها هدي هذا ربي قا وكقول إرادة ننكي أدو أنتي بو مثالك يتصالهاس أيا وحوين أتري بو له خشوعي ويقول والله حدا فهم إلا حق إنك سعتها استثقالك حق إنه وحي سعتها لأن لا نقيم كلام الله عز وجل مركا قفك إلهي جعل وإنه هذا الكيسان جعلها هذا الكرب العالمين إن جعلاتنا خير وذنب ذنبك وجرا والنعمة وين النعمة العظمى والمنة الكبرى وكلام الله عز وجل إلهي أمدا سي أوسنقا مسحين أونو إلهي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نعمة كوين وقرآن كما جرتو نعمة كوين هدي جرتو إلهي نبي يسوع ومن شاغن الله وح كوين ونبي يسوع ومن شاغتي وقرآن كان هين مجران وح كوين لا إله إلا الله حد قاعد مقشه إلهي جل جلاله إنه يسقطره وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من الله وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فضل إلهي رحمته صلى الله عليه وسلم فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قرآن كوين إلهي أكتي سلويه هي مركو النبي وتسيني نعمة وين يأوسي كلام الله يا حدي وحلقة سحبنا وحلقة سحبي والنبي اللي هديده والليلة وأنه كان قادن كرنا وحكوين هدي جيران قرآنك إلهي وأورنا لكن إلهي مورن إلهي وحوير ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله وقرآنك كان عليك كبيرا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قرآنك مركب وحكوين ملك أهل القرآن الله نقدر وأن نقنه وقرآنك أن وهل كي لنه وقرآنك فضائشه سلمك بكرم معنا إلى حد أحاديثك سوء أرورت إيمانا كهدنا ونوع من المقدمة هذا الكيك وحان كبالله بي الكلمة بمثابة قائلها الله قائل القرآن وكلمات الله وإياه وكلمة الله وكلمات الله وكلام الله جل جلاله هذا ربي قال جعل شيء قرآن كيس جعله وأهل كيس إنات كم من ضغطه كد ذلك وإلهي ما أنت والتيسيري سهل الأمر ويسره دذال بلغات دونية إنها دذاشو وقرآن كأدبرته وأهد وردي كدقته مؤمنك وإن أونا قرآنك وإن أوسن وردي سو كم مغنان في كل يوم وإن هذا أقرضها مهما كان ذلك المقدار سيدا أقوى ناكسا ضدكوا اللبا مد إلهي بأو نعميو قرآنك أو يو حفظيي أو هرو قرآنك أو حفظيي كاسي سقى هذا الكلام لقول هذا شيء كلوليه
nina waa min caamati almuslimiin weeye oo qur'aanka ma xifdisanaa laakiin caamati almuslimiin oo dadka ilaahay qur'aanka ugu necbeeyo ahlulqur'aani weeye kulligoodba ummaddan oo dhan waa ummatulqur'aan weeyaan kaa isaga waxaa laga rabaa cala alaqal bishii mar inuu qur'aanka aqriyo bil inay kusoo maalin kasta juz wakti badan kaa qaadan mayso hal juz haddaa iska aqrido wakti badan kaa qaadan mayso rubamaa laga yaaba inay 25 daqiiqo 30 daqiiqo min 24 saac 30 daqiiqo hadday ugu badato oo aad si tajwiid iyo wanaagsan u sii aqridana saacad iskaba dhaba in aad aqrido walow juz'an min yowmik oo bishii mar qura aad qur-aanka dhammayso soo arrin aad u wanaagsan maaha haddii alla ku waafajiyo wax weyn weeyaan wuxuu yidhi kan isaga qur'aanka xifdisan isaga waxaa la yidhi 3 juz ha ka yarayn 3 juz haddaad ka yarayso dabaal weyn baa tahay baa la yidhi haddaad ka badiso waa arrin wanaagsan oo subax haddaad yani usbuucii mar qur-aanka aad dhammayso waa arrin aad iyo aad u fiican haddii kale cala alaqal 10kii beri mar dhammee marka saa la leeyahay ma aha waxa uu nusuus la leeyahay oo haddaad saa yeeli weydo dembiyaad ee waxa weeye bitajriba ahlulfanni baa waxay dhaheen inta qur'aanka qofku xaafidka uu ku ilaalin karo xifdigiisa waa in 10kii beriba mar ugu dhammeeyaa hadduu xaafid yahay haddii uu saa yeeli waayo galab buu xifdigiisu iska noqon doonaa maca alayaam wadaad masri mari qur'aanka ma saad aqridaaho hadal wuxuu igu yidhi meel kolley meel ku qoran yahay anigu ma arkin laakiin haddaad u fiiriso waa hadal dhaba wey wuxuu yidhi alqur'aanu qur'aanku wuxuu oranayaa buu yidhi man hajaranii yowman hajartuhu 10 hal maalin ninkii aniga iga hijrooda oo yani iska kaydaayo akhriyi waaya aniguna 10 maalin baan ka hijroodaa 10 maalin ninkii iga hijroodana hajartuhu shahra bil dhan baan ana ka hijrooda on ka jeedsadaa hadduu bil iga hijroodana hajartuhu caama sanad dhan baan ana hadduu sanad dhan iga jeedsadana hajartuhu dahra kulah weligeyba waan ka hijroodaa buu yidhi qur'aankaaba saa la haysa in qur'aanku aqriyi waayo dabcan u malayn maayo inay xadiid tahay ama meel ku qoran tahay walaakin waa lisaanu xaali lqur'aani waa dhab weeye maalin qur'aanka haddaad aqriyi weydo taaiirkeeda waa dareemaysaa hal maalin hadday kusoo marto qur'aanka aqriyi weydo weliba dee dadka yani qur'aanka calaaqada la arrintaa aada u sii dareemayo haddaad maalin akhriyi weydo 10 maalin haddaad akhriyi weydana waaba dee waxa weeyaan waa khatar wey bil haddaad akhriyi weydana kama sii daran marka in sha allahu tacaala bal aynu ku dadaalno in aan qur'aanka wehel ka dhigano oon akhrino cala alaqal xataa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahid ma akhriyi kara ama dadka qaarkii waxaa laga yaabaa inaysan akhriya ilaah baa taysiiriya waa dhegaysanaysa ajhizadan iyo ashridadan iyo alaabtan iyo waxan iyo kombiyuutaraadkan iyo telefonaadkan iyo waxan oo dhan waxa weeye xujo weyn baa hadda dadka ku ogan oo berigii hore laga yaabo xujo weynaa saaran dadka ma dhihi kartid waxay baraan waaye ma odhan kartid jihaaskaa iska shido ama telefoonkaaga shido musxafka la bax lala soco dhegayso juuskaaga maalintii halkaas sidaa ku soco saa haddaad yeesho in badan dhagahaaga qur-aanka ku dhacaan waxaan idiin sheegayaa anigu yaraantaydii sheekh aadam ibn xaggaasaan arkaayo waa joogayo hartii sheekhu ka mid ahay anuu yar ayaa waalidkii allah yarxamuhu waalidna sheekh cali suufi oo xalaqada igu qasbi jiray inaan fadhiisto inaan aada u yaraa waxaan ku garanayaa berigaas dee hadda oday baan iska noqday laakiin berigaa inaan aada u yaraa waxaan ku garanayaa xalaqada oon ka mid ahay oo dadka fadhiista aan ka mid ahay ayaa marmarka qaarkii salaada oo lagu jiro horay i fadhiisan jiray war halkaa fadhiiso oran jiray salaadoo dadka ku jiraan halkaa waxaan ka dareemaya inaan 7 jir ka yaraa leanna haddaan 7 sano gaadhay ima dhaheen safka hortiisa fadhiiso salaadoo lagu jira salaadoo gal i odhan lahaa sidii caadadiisa ahayd da'daydu intahayd ma garanay lakiin halkaasaan ka qiyaas qaatay yacni waxaan xusuustaa salaada oo la oogay oo la galay oo la aqimay inuu ilaa dadka hortiisa fadhiiso inaan gadaal ku ciyaaray waxbuu ka baqaya mugta war xaggaa fadhiiso iyadoo xaalkaygu ay sidaa tahay
ayaa haddana xalaqadaas bayna almaqribi waalcishaa iyo tan bacda alfajriga aana ka maqnaan karin. waa juz baa la aqriyaa maqribka iyo cishaha dhexdooda, fajarka ka bacdina juz baa la aqriyaa. 15 beri mar baa qur-aanka sidaa lagu dhammeeyaa. laakiin juzka la aqrinayo ayaa min khilaalihi tajwiidka laga saxayaa dalabadaas iyo ardada oo dadka qaarkii qiraa'aadka ay ku baranayaan, oo waxay ahayd xalaqa mutakaamila bay ahayd. marka yaraantaydaas ayaan fariisan jiray oo yani anoon xataa musxafka si fiican uga kicin karay qur-aanka ayaan iska fadhihi jiray. mana la ii ogolayn inaan ka maqnaado. fasaxna ma lahayn, jumcana ma lahayn, ciid xataa ma lahayn. xataa yowm alciid lama joojin jir, walaa ciid walaa fasax walaa ma jirin. waa ku qasbanayn inaan fadhiisano halkaa. dabadeed waxaan arkay berigii dambe oo 10 jir iyo aan gaadhay ayaan damcay inaan qur-aankii oo dugsi waa jiray aan tegaynay oo iska ma garanaysaa. laakiin markii aan damcay inaan qur-aanka u soo jeedsado oon xifdiyo, waxaan arkay inaan iska xifdisanahayba. waan xusuustaa oo markii aan damcay inaan qur-aanka maalin kasta juz baan yaan diyaarin jiray. wuu iska diyaarsanaa, waa isu keenkeenay oon isku yarhagaajiye. waa min karati samaac, ku noqnoqodkii ma aragtay aan fasaxa lahayn, aan ciidna lahayn, aan jumco lahayn, waxba lahayn, een ku qasbanaa in meel hebliya halkaa la geeyey, halkaa lagu soo ciyaaray, waxaas aysan jirin. waxay keentay bifadli illaahi inaan juz intaan diyaariyay habeenkii aan uga baxo alwaalidka allah yarxamo aan uga baxo. taasay iska ahayd. iyo khilaal shahr qur-aanka sidaasaaban ku xifdiyeyba. taas weeye hadda marka aan lagu leeyahay had iyo goor qur-aanka dhegayso oo xalaqaadka had iyo goor hala sameeyo oo dhagahaagu markay qur-aanka ay ku bataan oo carabkaagu uu ku bato, walow yaadan xifdininba haddaad doonto, akhriskaaga iyo carabkaagu hadduu ku bato, dhegaysigaagu uu ku bato, marka dambe adoo waxaad arkaysaa xifdiyi baad arkaysaa. allah naga dhigo min ahli lqur'aani in sha allah. mowduucaygu iska yar baahbaahay. waxaa ku jiray mowduuca akhwaankii ay ka hadleen oo la yidhi taariikhda qur'aanka fi Soomaal iyo taariikhdeedu waxay ahayd. kulli aniga taariikh fara badan oo aan sii garanaya weyn ma sii jiraan, laakiin waxaanuun ognahay ilaahay subxaanahu watacaala dadkeena ahlu Soomaal ilaahay dadka qur'aanka ugu nicmeeyey baanu ka mid ahayn. waxaan ka maqlay waalidka allah yarxamuhu in fannigan qur'aanka ka xifdi ahaan iyo lafdi qur'aanka oo la xifdiyo weligeed waa jirtay. laakiin in fannigan tajwiidka ama qiraa'aadku inuu horay u jiri jiray, zaman hore uu jiri jiray baan ka maqlay, oo indiraas ku dhacay oo kala go' dhacay oo wuxuun ama xuruub baa dhacday ama mashaakil baa dhacay ama culummadii baa guurtay ama meesha ka tagtay. laakiin fannigani inuu jiray qur'aanka lagu barto ee tajwiidkiisa iyo qiraa'aadkiisa oo asli horay u ahaa, isagaan ka maqlay. hadallada aan ka maqlay waxaa ka mid ahayd macallin dugsi looma dhiibi jirin ilaa bacda xifdi alqur'aan, qur'aanka xifdigiisa waa inuu sugnaado, ka bacdi laba shayna waa inuu xifdisan yahay. shaatibiyada oo qiraa'aadka ah waa laamiya, yani imaamu shaatibi 7 qiro wuxuu u alifay qasiido ka kooban 1173 beyt. laa bayna ku dhammaataan, laamiya la yidhaahaa. laamiya shaatibiyay mashhuur ku noqotay. shaatibiyadaa waa inuu sida qur'aanka u xifdisan yahay kow, iyo tan kale shaatibiyada iyadana rasmiga ah oo rasm alqur'aan iyaduna waa inuu xifdisan yahay. oo ileen dugsiga qur'aan musxaf waxaa lagu qori jiray looxa ayaa lagu qorayaa. masaaxifna maba jirinba, oo masaaxiftan matbuuca ah ee la madbaceeyey ma aysan jirin berigii hore. masaaxifta naftirkooda gacantaa lagu qoran jiray. marka macallimku ictimaadkiisu waa xifdigiisa iyo macallimiintiisu wuxuu kala kulmay. marka laba shaqo waaweyn baa laga rabaa, xifdigii oo sugan
iyo rasmiga qur'aanka naftirkiisa sida loo qoro waa cilmi gaar ah iska qor ma ah yani qiyaas alhijaa sida xuruufta la isugu daro iyo siduu musxafku u qoran yahay waa kala laba haddii qawaacid alimlaa'i walhijaa haddii la yidhaah de waxaad doontaa waxaad sida hadda haddii maalan kalaam oo aan qur'aanka ahayn aan kuu imleeyoon qorku idhaa waxaad u qoraysaa qawaacid calaa qawaacid alimlaa baad ku qoraysaa maalan alraxmaani oo kale bismi illaahi ba dheh soo kelimada ugu horreysa ma aha bismi illaahi calaa qawaacid alimlaa qor haddaan ku idhaa bahda iyo siinka iskuma daraysid ee alif oo hamsatulwasli aad u dhexaysiinaysaa ismi si gaaraad u qoraysaa bismi baad qoraysaa kadalika alraxmaani waa inaad alifka ku taagtaa miimka alif ku taagtaa oo nuunka uu gaar ka noqdaa waxada calaa qawaacid alimlaa haddii la yidhaah laakiin qur'aanka marka la qorayo bismi illaahi baada iyo siinka waa la ysku darayaa halkaasi waxay ka hor timid qiyaas alhijaa lianna bismi illaahi hadday tahay qur'aanka oo dhan baada iyo siinka waa isku daran yihiin laakiin bismi rabbika hamsatulwasligaasi waa qoran tahay oo siinka iyo baado isma raacsane ee alif baa u dhaxaysa maxaa bismi rabbikana alif loo kala dhexaysiiyey bismi illaahina laysugu daray waa arrin aynan ka jawaabi karin ilaa asxaabtii nebiga radia allahu canhum wasala allahu calayhi qur'aanka qoray iyagu qoray ilan siday asxaabta nebiga ay qur'aanka u qoreen unbaa loo qoraya si kale loo qori maaye waqaala maalikun ilqur'aanu yuktabu bilkitaabi lawal laa mustaxdathan sutira lama ogola qiyaasulhijaa in lagu qoro asxaabta nebiga say u qoreen unbaa loo qorayaa oo kan bismi illaahi baada iyo siinka maxaad alifta ugu dhexaysa isugu darteen kana bismi rabbika aad alif u dhexaysiiseen iyaga unbaa ka jawaabi kara iyagana insha allahu haddii aad dadaashay jannada unbaad kula kulmi ood odhan maxaad sidan u yeesheen bal noo sheega laakiin adduunka qaar isku dayday oo yiri cillo iyo waxu raadiyey laakiin meel ay wax qabadsiiyaan waa la waayay lanna qiyaas alhijaa qiisadu weligeed waxay ku socotaa qaacido isku mid ah maalan inaan idhaahno subxaan qur'aanka meel alla meeshay timaado waa xa'da in alif lagu taago nuunkana ay gaar noqoto subxaan laakiin musxafka haddaad hadda fiiriso qur'aanka oo dhan subxaan xa'da iyo nuunku way isku daran yihiin alifta yaree korka laga saaraya alif ay asxaabtu qoreen maaha dabdi baa la yidhaha dadkii dambaa iska sameeyey oo dadkii horena yani wax xuruuf oo mulawan ama yani axmar iyo waxaasay ku qoran jireen dadkii dambena madaacibicdan dambena alif yar bay dusha ka saaraan laakiin asxaabta qoritaankoodu saxaabadu waxay qoreen subxaan qur'aanka meel kasta ay timaado xa'da iyo nuunku way isku daran yihiin ilaa meel keliya oo suurat lisraa qul subxaana rabbii alif baa lagu taagay taas haddaad hadda musxafka fiiris waa arkaysa maxaa sidan loo yeelay lama yaqaan meeshan keliya maxay sidan u noqotay ma nacrif oo yaa ka jawaabi lajnadii qur'aanka qortay zayd ibni thaabit iyo raggii dee dadaaluu jannada ugu tago iyaga soo warso iyagaa kuu sheegaya maxaa sidan loo yeelay asxaabta nebiga qoray laakiin ilaahay annaga wuxuu noogu nicmeeyey in uu qur'aankii noo ilaaliyey lafdan wa kitaabatan hadda musxaf qur'aana lama ogola in la qoro haddii la qoro wax khilaafsan sidii rasmiga ahayd waa mamnuuc lama ogola waa ijmaac alumma waa la diiday musxafnimadiisa lama ictiraafsana haddaad bismi illaahi alif ku taagto arraxmaanina alif ku taagto maaliki yowmi ddiini sow ma aqrinaysa haddaa xafso aqrinayso haddaa aliftaa qorto waa mamnuuc lama ogola asxaabtu ma qorin asxaabtu miimki iyo laamka waa isku dareen oo malikii bay u dhigan tahay siday u qoreen laakiin maalikina way aqriyeen oo aliftaasi in la aqriyo iyo dhigaad xiriir ma leh iyadoo xuruuf badan oo qoran oo waxaa jirta aan la aqriyay iyo xuruuf badan oo aan qornayn oo la aqrinayo waaw ulaa'ika baa ka mida beri buu nin yimid halkaas masjidka noogu yimid waa macallin buu ahaa dugsigo waxaan u malaynaya dugsigii odayaasha qaarkood garanayaane tajwiidku kolkuu yar faafay ilaa saad la socotaan sheekha raxmatullah caleyh markuu tajwiidka bilaabay dad badan baa kolkii hore diiday oo waa laga hor yimid oo dhibaato badan ba iska dhacday oo waxbaan dhibaatada uga soo yar joognay yacni
kolkaa macallin baa beri noo yimid oo aad u caraysan oo ileen ardadii baa inta dugsiye tajwiidka laga agfuray baa laga wada kaxaystay, kolkaa uu caraysan yahay. masaajidku noogu yimid oo markaa wuxuu yihi waxaan rabaa aniga meeshan waxaa ka keenteen tajwiidka in la ii sheego bismi illaahi araxmaan araxiim miimkan aada reebaysiin bal iga tusa musxafka ilaah waa kanaa raxiimi soo ma aha, soomimkin ma hoos dhowna. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina soo ma aha, nuunku sooma kor dhowna. maxaa rabbi alcaalamiin nuunkan la reebay xaggee laga keenay? waa xujo iska taagan ma og tahay. waxa weeye de sidaana tajwiidkii iyo culimadii naga soo gaareen, ma aniga waxaa musxafkan ku qoran un baan akhrisanaya buu yihi, wax kale ma ogeli. marka meel baa isaga laga helay, waxaa la yidhi waa yahay wixii musxafka ku qoran oo dhan ma akhriyaysaa? haa. ulaa'ika calaa hudan min rabbihim bal aqri ulaa'ika. oo wowgan maxaad uga tagtay? ileen aliftan hamsadaas alifta u sawiran wow baa ka dambeeya. ulaa'ika ma la dhihi karaa? maya lama dhihi karo. oo maxaa loo akhriyi waaye? maxaa loo macallimiintii lagama soo gaarin. kanna macallimiintii lagama soo gaarin, waa isku mid. kanna waa isku mid. suuratu an ra'aahu istaghnaa, an ra'aahu bay dhahan mogtahay xataa soomaalida. an ra'aahu ma la dhihi karaa? maya lama dhihi karo. oo maxaa dhahay? bal rabbukum ma la dhihi karaa? maya waa in bal rabbukum le. oo laamku maxaa looga tegey? macallimiintii lagama soo. hada huwa shayga lagu sheegayaba waa kana macallimiintii lagama soo gaarin weeye. macallimiintii hore qur-aankana baray xaraf xarakaysan kumayna joogsanin, waxaa lagu joogsaday sukuun reebniin. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haddaad joogsato, haddaad xiriiriso waad xarakaynaysaa. hadda soomaalidu dugsiga marka ama qur-aanka ay dhigan jireen arrin fiican baa jirtay oo ah in wasliga ama xarakada kelimad kaste xarakada ay ku dhammaato in ardayga la xifdisiiyo. waana arrin hadda dadka qur-aanka xifdiyaa ka maqan wey, waa arrin muhima. laakiin wasliga mayna aqoon. bimacnaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu in lagu joogsado waa la baray, waana wanaagsan tahay in la baro nastaciinu inay godan tahay. laakiin lama barin wa iyaaka nastaciinu hdinaa in la yidhaah. idan xaraka in lagu joogsado waa la baray, laakiin طريقة الوصل in la xiriiriyo oo همزة الوصligana ay dhacayso oo إياaka نacبud وإياaka نستaciinu اhdina waa غalط. waa ina haddaad xiriiriso aad tiraa وإياaka نستaciinu اhdina. marka taariikh ahaan qur'aanku waa qadiim fi Soomaali. aabbo aan ciyaalkiisa qur'aanka barinna waxaa isu qaadan jiray inuu gablan yahay. qur'aanka inay bartaan baa asal ahayd. tamadunkan iyo reer magaalnimadan iyo iskuulkan iyo waxaan markii la bilaabayna in badan waxaa caado u ahayd usarka Soomaalida in aynan iskuul geynin ilmahooda ilaa qur'aanka lasoo xifdisiiyo. arrin aad wanaagsan bay ahayd. markii damboo la isu keenayna waxoogay khalal waa jiray oo ma garanaysaa dee dabcan arrintan oo ghaswi fikriga oo caalam alislaami oo dhan lagula dagaalamayey oo in maaragtay diinta wahan iyo dacfi la geliyay way iska jirtay. oo ardayga saad la socotaan dugsiga qur'aanka ah dugsi maaragtay meel fiican haysta ma aha, waa meel iska tabaalaysan oo khashab iyo ka samaysan oo dhulkii iska ciid yahay oo markaasaa weliba maaragtay markuu dugsiga sii tegayana dhar iska jeexjeexan iyo kolkuu iskuulka tegayana la qurxinaya la hagaajina. waxaan gadaal baan ka fahamnay waxay ahayd ghaswi fikri oo dadka lagula dagaalamayo oo la doonaya in diinta wahan la geliyo min albidaaya ayay ahayd. laakiin asaalatan qur'aanka bifadli illaahi way jireen, dadkuna sidaasuu ahaa. iyadoo cilmigaas horay u jiray baa indiraas soo galay. indiraaskaa soo galay wuxuu keenay lugadii lagu hadlayey ee dadku ay ku hadlayeen ee caamat annaas ee lugadii soomaaliga ahayd iyo in badan makhaarijtii carabiga ahayd inay iska hor timid. taasna khaas uma aha soomaalida, khaas soomaali uma ahe xataa dadkan af carabiga caadiga ku hadla qolo waliba mashaakilkeeda iska wadata. maalan hadda masaaridoo kale xuruuf badan baa markay caamatu nnaas ay yihiin dhib ay kala kulmaan markay qur'aanka akhrisanayaan, sida daalka iyo haada oo kale iyo dhib badan haddaad aragto meesha tajwiidka iyo lagu barayo waxa weeye طلع lisaanaku maanta o dhan ku hayna carabkaaga soo ida mish iza
إذا جاء نصر الله بسكلية وهذه لهجته قلوين كلا وإسكجران يعني وهكذا سومالينا حروف بدن أي لهجته دي يلغوه يكوه ذيين أنا مركان سالة وحن كير دينا أو يردينا بنا أقول إلى يومنا هذا إن أف سومالي أف عربي لقد حساره أنا وحن قباب سومالي وإنه يهف عربي وأؤكد على هذا وأنا ديار بانو هاينا أنا أريد أصدوت بدن ككين صوت بدن ما ككينك هداد أصفي فيرستنا لغة عربية نحو ذي كما هو اللغة الصومالية في نفس النحو وأن أقان أنا أعلم وتقان أنت تعلم ويقان هو يعلم وأن نقان نحن نعلم حروفنا أيت هي نفسها في الصومال سو سيدا ما كل هذا يدين كدين شيء ما لكن قولوا إنك كلام كل الضوضاء قولوا إنك خلي أيام كل الضوضاء أمريكا دهنا في الصومال يقول عربي ما هبان لها إن بدن أو لغة عربية أو هذا قرني نباجرة قالوا حكم إذا ليرا حميرو الأردن أم كدكت أمرين بريم سيامهم في مسافر بنبي كويرين قال كاسو جواب ليس أمرين بريم سيامهم في مسافر هذا بفهم بنكويرها ما فهمان مرك محله جيد ذواف عربي لكن قرن ميش معجزات كان النبي قال وحكم ذهب عليه الصلاة والسلام وفود عرفت أنت أتماده إن يجلهضنا يسوون أولهض أفكوذ كلهض أصحابتك لنا هنا فاهمين وأبو بكر يا عمر الرقاص أفك هنا فاهمين معوية وأنا أف عربي هذا وأنا أف عربي قل كواحد إلى فرع فروع ذا كم ذا ويانا وحبيان لنا سيريان لنا أف سومال هو لغة عربية لكن كلمات هي حروف وحكجرة عن مخارج الحروف الأصلية هي سنين ضاد كم ذا حرف الضاد مش موجود يعني بوسكي ضاد لام بالش كقلي وهذا كلمات فربضنا وأصل كود عربية هي هذا هدي أن إسلام باربار نوح بدن بهلينا كلمات فربضن وأف عربية ولا سومالية وأصل كيدو ضادها لكن لام لقدقي أرلذي بدتك قارك سكنا أرلذي إلهي أرلذي أصل كذا أرضذي أهد سما توا بس كفهميش وحن لر أصلها من الضر لد أصلها من الضد ولكن ما دام أون الكجر لفظي يعني حرف كان اللغة الصومالية لام بالغدي ساس دتك قارك ولا لالين اسكده وغلط قار waxay maya taasi way nagu yar fool xunto laam buu meeshii noqday aanu meel kale markaas makhraj aan jirin loo raadiyay halka la soo qaaday bishintii wala dhaalini halka la geli وهذا ايضا خطا حرف الطاء كمذا الطاء booskeedii dhaabha ku jirta dhabar iyo dhinac iyo ma garanaysa fadhi iyo dha walakin dha carabiga kama midha qaar baa marka iska saalay waxa siraa dhaladiina iska yiri idina siraa dhal mustaqim tama qaarna waxa dhahamay wadadu way siyar culus tahay xoogay aan soo fudayno aan dhahno do la do wala da af carabi ma labadiiba xarafka طاويا اهدنا الصراط المستقيم إلى هذا مشاكل بدنا كايست حرف الطاء مكين كران لأن دا يا ضاء لذلك الشيخ رحمة الله عليه وحول جري يعني إسلامتا ما ركتي عبرتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى أيا كسواب سن أو كسحسن وذلك الشيخ أعوذ بالله من الشيطان ده ليش؟ لأن إيضا مركي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى صفات كي حرفكم بيقفتي مخرج يسوي كنت لأن ذلك يطاض ويسكو مخرج مركا شيطان مركا تلاهي إيه شيطان صفتي بعد قفتي مخرج كي ما تقفن لكن هذا شيطان تلاهي مخرج كي ما يسد ما أنت في المخرج مركا توفيق الله نوافجيه إن شاء الله القرآن كان كده ذله ونحن يعني أهل الصومال وأصلا للقرآن وي بلد كان أنجوجنا يوضمنا أنجوجنا النعمة وين باتهال أنك فايدة سنو بفضل الله تعالى إن شاء الله سعوتان الحمد لله أئمة حلوه وناكسن وحفاظه أي ملك استجوج قولي قاعد دقنت هاي منطقة قاعد دقنت هاي إمامك كلته كذابات كفايدة سنكرتها وأتكبرن كرتها يعني حجها كدقني فلان يا علام بنواي وقرآن برن ماي وأتبرن كرتها هذا أنت ويدبه معلن كان ليله هو إن كمبيوترك بأسجنا كبري كرا وإلهي سبحانه وتعالى خير بدن كودي كل القرآن كان كود الدلالة أن برنه
والله ولي التوفيق، وبالله توفيق إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.